السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتيda sharafta badan aad ayaan idiin salaamayaa gul iyo gobonimo ayaan idin leeyahay meel walbo aad joogtaan adduunka daafihiisa akhyaaray sida ogtihiinba ama laga yaabo qaarkiinba inay ogeen waxaa ogaataan akhyaaray marka koowaad intaana Arsenal iyo transfergeeda suuqeeda aan hore usii gelin inay Arsenal tahay seasonkan teamka kaliya ee saddexdiisa Premier League game ugu horeysay 9 dhibcood ka qaatay 9 goolna xirtay inay noqotay Arsenal sidoo kale William Saliba shalay what a performance war cuniganiyo muxuu ahaa cuniganiyo Brazilian inuu iska noqdo soo u wanaagsana ninka France u dhashay lama oran karo ninka caadiya ma aha ninka gadaal inoo taagan ninka mustaqbal weyn ayuu leeyahay markuu dheelay horta aniga waxaan moodaa Zlatan Ibrahimovic inuu la da'yahay 41 sano jir uu yahay sidoo uu ciyaarayo experience ninka waa ilmaha waa yar yahay xaqana khibrad waxa Ilaahay siiyay aan caadi ahayn sidoo gadaal u maamulayo caadi ma aha shalay teamka ciyaar aad u qurux badan oo Arsenal fans waxa ay dhowr sano intaasoo sano ay u cabaadayeen oo ay lahaayeen warmaan aragna Arsenal oo sida u ciyaarayso waa amaan aragna Arsenal oo sida yeelayso Arsenal sidii bay hadda ku socotaa Zinchenko ninkan asagana waa nin kale experience player khibrad aan caadi ahayn timing iyo decision xilliga banoonta la baasay iyo xilliga la haynayo difaaciyada bariyahan skills waalan ciyaaryahanka banoonta gadaal looga baxayaa asagaaba u keenaya Zinchenko lugta loo gelinaya tartiib oo iska qaadanaya asagoo aan banoonti raacan oo aan isku dhibin Gabriel Jesus what a signing ninkan iyo caadi ma wallahi Premier League number 9ka inuu dabiyo waxaad ku garanaysaa kaliya meel walba hadaladiisa ayaa la wadaa Gabriel Jesus overall gamekaas ajalad gaar ayaan kaga hadli doonaa ama video kale hadduu alla idmo iminkana aan u gudagalo Arsenal iyo transfer windowgeeda Mikel Arteta press conference-kiisii oo intii aan la dheelin gamekii Bournemouth aan la dheelin wuxuu sheegay inay wali suuq ay ku jiraan ayna ciyaaryahano kale ay keeni doonaan laba ciyaaryahan markay ugu yartahay wuxuuna ku describe gareeyay fire power dab xoog badan baan soo wadnaa uu yiri waxaan soo wadnaa ciyaaryahan kaliya ma ahane Gabriel Jesus kuwa la mid ah ama kuwa ka dardaran ayaan soo wadnaa hase ahaatee akhyaaray waa ka warsugeynaa Arsenal waxay noo keento inkastoo sidii aan rabnay hadda ay ku socoto laakiin wali xoogaa quality u baahanahay game adag ayaa soo noqday wali inaan hadda aan isdhigana ma ahan saddexdii game ugu horeysay Premier League kaliya ayaa la ciyaaray wali team weyn lamaana ciyaarin marka inkastoo aan si fiican ku socono rajo fiican aan leenahay hase ahaatee inaan isdhigana ma ahan waa in squad kala adkeeyo way ma fahanteen okay haddaan hore uga dhaco Arsenal iyo suuqeeda Pepe ayaan baryahan ba idinkaga soo waramayay ciyaaryahanka waa tagaya qalab qaadanaya shalay ciyaarta waa laga soo tagay bench xitaa kuma jirin waa marka waxay calaamad u tahay ciyaaryahanka inuu maryihiisa iyo garamadiisa wixii booma magaalada ka yaalay iyo waxa inuu arursanayaba ilaa hadda details oo sida u sheegay ma jirto inay loonka hadda uu ku baxay inuu yahay mid option ah inay iibsan doonaan ay la socoto ama inuu yahay mid 2 sano iyo waxa laakiin ciyaaryahanka ilaa hadda inuu baxayo oo Nice uu aadayo loon oo ku baxayo ay wararka sheegayaan waana dhantahay arinta ayada sidoo kale Yuri Tielemans shalay markii la ciyaarayeen Southampton waa laga soo tagay ninka ahaa Yuri Tielemans asaga iyo Fofana labadoodana sida ogtihiin midna Chelsea baa raadinaysa midna Arsenal baa lagu xamanayaa Arsenal baa raadinayso marka ciyaaryahanka waa laga soo tagay Brendan Rodgers markii la weydiiyay wuxuu yiri yaa waa feed mays ahayn iyo waxba sida hadal aan jirin oo hadii aad iska marka uu ku maagan yahay coachka waxyaabo aan waxba ka jirin buu ku sheegay gadaal dambe ayaa laga keenay hadii laakiin waa xilli uusan waxba qaban karin ciyaaryahanka waana laga badiyay shalay homekooda saddexdii game ee Premier League ugu horeysay hal dhibic kaliya ayay kala baxeen marka taasi ma waxay horta waxay calaamad u tahay inuu ciyaaryahanka baxayo oo ay dirayaan walibana ay lacag yar ay ku dirayaan sida 25 milyan marka Arsenal ma waxay doonaysaa ciyaaryahanka inay Leicester ay ku qasabto maadaama uu dhamaanayo transfer window December fastigeeda waa maanta ugu horeysa taariikhda kood uu dhamaanaya maalinkaas ay la sugayeen ilaa deadline-ka oo leeyihiin 20 milyan qaata maanta anaga gacanta idan ku helnay kale ma sidaasay oranayaan ma garanayo mise ciyaaryahanku waaba Arsenal waaba isaga tagtay oo wax kale arkaanba marka isna Yuri Tielemans arintiisa halka ay maraysaa waa laba maadamid inay Arsenal ciyaaryahanka ay la ciyaarayeen teamkiisa oo lacag yar inay ku helaan ay doonayaan
iyo inay ka tala baxeen oo ciyaaryahan kale ay raadinayaan iyaduna waa arki doonaa. Sidoo kale maanta ciyaaryahanka nagu cusub ee wararka ay sheegayeen ayaa wuxuu yahay ciyaaryahankan ay dhahaan Modric, magaciisu waa yara adag yahay, waa 21 sano jir, wuxuu u dheelaa Shakhtar, wuxuuna u dhashay Ukraine, weliba waxaa lagu naanaysaa baa layidhi Ukrainian Neymar. ninkan Neymar baa lagu soo hadal qabtaa baa layidhi waa garab buu dheelaa as well as number 10 waa dheeli karaa baa layidhi iyo garabka labadiisa dhinacba. Neymar buu la qaab yahay baa layidhi, waa ciyaaryahan caadi ahayn baa layidhi. Anigu kulley ma arag wax sidaa ana kama sheegi karo, laakiin ciyaaryahan aad u qiimo badan oo Ukraine marba haddii lagu dhahay ciyaaryahankan kani waa Mbappe oo kale, waa Messi ka cusub haddii lagu dhahay ninka waa nin waaliya kulley wax waaliyoon ka filo fanska waa ogtihiin ninkii ciyaarihiisa ka helaan kolba nin bay ugu magac daraan. Marka ninka ayaa wararka ay Arsenal sheegayaan in maanta Arsenal ciyaaryahanka ay isha ku dhufatay oo ay macnaha ay fiirsay oo ay isleedahay warkani ma soo qaban kartaan Neymar lagu xamanayaaye kani miyuu idan anfacaya. Marka waa war nagu cusub hadaa has ahaatee wax saas oo detail aan ka siiyana ma lahan, laakiin listiga Arsenal ay ciyaaryahanada indhaha ay ku hayso ayuu soo galay ciyaaryahanka waana 20 sano jir aad ayuu yar yahay. Kuley hadduu Arsenal ay soo qabataan hadii ogama darayso Zinchenko ayaa joogo isna Ukrainian u dhashay. Ciyaaryahanka ma imaan doonaa oo Arsenal ma soo qaban doontaa waxaan arki doono. Sidoo kale Yeremy Pino ayaa isna wuxuu aad ugu yahay Arsenal ilaa hadda wengayaasha ay raadinayso the most likely one inuu Arsenal ugu yimaado. Cody Gakpo ee Arsenal raadinaysay sida ogtihiin asagay raadinaysaa, Rafinha hadda ka hor raadinaysay, garba far badan ee Arsenal ay hadda raadinaysaa. Waxaa ka mid ah garbaha ay raadinaysay daraad xariifkan Chelsea u joogo Odoi bay raadinaysay. Marka waxay u egtahay Arsenal wararka siday soo gudbinayaan in Arsenal ciyaaryahankan Yeremy Pino ay aad diirada u saareyso oo waliba waxaa la siinayaa 75% inuu asaga imaan doono kuwa kale markii loo fiiriyo. Marka isna wali Arsenal listigeeda ay ku jiraa. Arsenal ciyaaryahanka aad ay indhaha ugu haysaa isna waxaan u maleynayaa waa Arsenal waqti iyo plan gooni ah ay u haysaayo ciyaaryahanka waxay isleedahay Villarreal ka soo farmaroojiye oo da' yar yahay idin ku qaaliyeen suuqa intaad ku yara ciriirisaan xoogaa markii waqtiga uu dhamaan rabo xoogaa yar kaga soo qabta intaad u turtaan xoogaa shilmaad oo qandaraas am fahanteen. Marka ciyaaryahankana waa sidoo kale Hector Bellerin ayaa maanta wuxuu kula jiray wadahadal kooxda Barcelona. sida ogtihiin Barcelona iyadu waxay doonaysaa inay Dest ay iska dirto ninka Dest abay doonayaan inay iska diraan. sida ogtihiin Amerikaanka waxa weeyaan waa dadkan madowga aan Mombasa la joogno oo kale isdabarbarayo. Amerikaanka sidoo banoon laguma talagelin, ayaga waa cricket baa lagu talagalay aad uguma fiicna waa sida midowgan oo kale ma fahanteen. Marka waa ciyaaryahanka ay iska diri rabaan oo Bellerin bay inay soo qabtaan ay rabaan oo una ku soo baxayaayo waa Spanish oo waa nin asana attacking miran. sida ogtihiin Barcelona ma qiimeyso difaaca, xagga difaac ma qiimeyso, waa banoonta noo hay gool badan hal la xiro hal iska baashaalo weeyaan ciyaartooda. Marka waa profile-ka ay doonayaan uu ku soo baxaya. Bellerin maantana wada hadal ay ku jireen ilaa haddana wax go'aan oo cad oo ka soo baxay ma jiraan. hase ahaatee wuxuu u dhow yahay inuu halkaa ku daba dhamaan doono ciyaaryahanka Barcelona suuqa baryahan si xariiftinimo ay ugu jirtaayo dadka waa malawaaleysaa waxay leedahay kani war makani dabaadna way soo qabanaysaa oo markii laga wada shakiyo la Arsenal Barcelona waa iska ciyaaraysaa. sidoo kale Ainsley Maitland-Niles ayaa isna idin sheegay inay West Ham ay daba taagan tahay ciyaaryahankan ay raadinayso. sida ogtihiin West Ham laftirkeeda xaalku waa ku xun yahay oo dadka ay marada ka dhacdhacaysa ay ku jiraan. sidoo kale Man City ayaan arkay iyadana caawa marada ay xoogaa hoos ooga yara dhacdeen kastoo dhulka aysan ka gaarin 3 gool bay la hormareen oo dabeedna waa 3 gool ayaa loo dabariyay. kuwa caata ana way xirayeen waa arkay gool caata ay gadaal ka keeneen. marka iyaguna xaalku waa ku xun yahay oo maantana waa laga badiyay. maantana waa gameka iyada ay laga badiyay. marka waxa isleeyahay West Ham waa xilligay talaabada ay qaadi lahayd oo caasigan intay naga qaadato ay dhaxda dhigan lahayd si wax ugu qabto. marka akhyaaray wararka Arsenalna waa naga inta Arsenal maxaa kale yihiin waa dansantihiin teeda kale akhyaaray kor hal isku soo qaado qoodha iyo xiradaaya meedan idin ka gabyaa doonaysaan hal isku soo qaado in adeeryaal bahalka hal share gareeyo hal socodsiiyo wixii war ana aniga igu imaada. marka akhyaaray wakaasa hadii ilaa hadda dadkana marada ka dhicin baan nahay hal ay ciimamadayaan marada liga ridin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.